xilli aan dhex marayay wadada weyn ee dhex marta suuqa magaalada Buuhoodle ayaa waxaan la kulmay dameer inta badan ay sheegeen dhalinyaro ku nool deegaankani Buuhoodle taasi oo ku qoran yahay magaca Ilaahay Allah sida idin muuqata daawadayaal dameertan ayaa in muddo ah joogtay deegaanka sida la ii sheegay balse taasi waxa aad muddaa in inta badan dadka aysan u fiirsan in magaca Ilaahay uu labada dhinac kaga qoran yahay dameertani subhanallah waana mucjiso rabbaaniya oo loogu arkay markii koobaad deegaankani Buuhoodle balse dadka inta badani aysan la socon waana tan daawadayaal dameerkaasi oo ay maanta qabatay kamarada TV-ga caalamiga ah ee Sam News iyadoo arintani loo baahan yahay inay ku cimri qaataan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka Allahu 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 qisadani ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee ibid ka dhacda deegaanka Buuhoodle iyo nawaaxigiisa inta la ogsoon yahay Cabdicasiis Aadan Jaamac telefishinka caalamiga ah ee Sam News Buuhoodle